waxaan rabaa inaan raaligelin ka bixiyo muuqaalkii ku horeeyay ee maanta aan soo gelinayay bilow ilaa dhammaad. waxaan rajeynayaa inaad daawanaysid muuqaalkan. inta xumaanta ii fahantay ee kommentiyada igu soo canaanaysana waxaan leeyahay waan idin raaligelinayaa, bal ka bogo muuqaalkan. waan awoodi lahay xataa inaan idin soo hor istaago marka ugu horeysa assalaamu calaykumta, because aad iyo aad u ciilooday waxyaabaha filinaynaan. horta asxaabay, ma ogtahay waxaa la weynayaa mindhiga ilmada ugu socdaan? ma ogaan kartid sax? laakiin anaa ku sheegayo horta waxa ilmada iga keentay ama maanta muuqaalka intaanan bilaabin ka hor waxa indhahayga ilmada kasoo daadiyey waxa waaye waa adiga dartaada. commentiga adiga soo bixisay aad iyo aad ii dhaawacay, meel xun uu iga taabtay. sababtoo yacni dadkayga waxaana ka filinaynaa ka arkay. way fiican tahay in la isku sheego wax walbo, qaladkii in la isku sheego. qofka hadduu qaldan yahay waa qaldan tahay inta la dhaho. yacni kama xumi inaa runta ii sheegtaan, laakiin xaqiiqada waxay tahay in runta la ogaado ama qofka su-aal la weydiiyo. dhib ma lahan hadartaan anaa idinka jaahil bixinayo. horta muuqaalka saaka idiin soo gelinayay ana horta ma aaminsanin muno inay dhimatay ama maniish. gabadha walaashay ah ma aaminsanin aan inay dhimatay. ma fahante muuqaalka markaa anigoo isdiyaariyey oo shaqadeyda u socdo, dad waxay ii soo direen fiidiyoyaal liigu soo diray whatsappka oo liigu soo sheergareeyay. fiidiyoyada markii liigu soo sheergareeyay ani waa labistay anoo shaqadeyda u socdo oo isla suuqaaga aad aan whatsappkayga haddaa galo fariimo badana bii yaalabo. fariimihii markaa furay waxaa arkay shila dhacay, 5 wiila meeshan ku geeriyootay. gabar kulix, gabadhaasna Munisha la dhahaa. status ka fiiriye naxtin qof walbo shilkii ayaalo. still qof walbo wuxuu dhahay xaqiiq looma hayo qofkaas intuu dhintay inuu nool yahay. anigana markii way ila noqon weysay oo xataa waa aamini waayay. waxaan markii sameeyay video waan duubay. waxaan jeclaystay dadka walaalahayga dhibaatada ku jiraan inaan la qaybsado oo idinkana u duceysiin, anigana videoga aan idinla soo wadaago. marka anyway dhib ma lahan, waxaa la qofna si u dhahay qofna si u qaaday. fahamte marka idinka haddii aad qalad ii fahanteen aniga umaana libisanin farxad, danahayga u libisnaay, suuqayga u socday. teeda kaleeto geeriga qof walaashay ah kuma farxaayo. teeda kale qof ani iga mid ah, qof ani jiirteeda, qof ani walaashay ah geerideeda kuma farxaayo. absolutely ilaahan ilo og wallaahi oo bilaahi oo tallahi waa magaca ilaahay maanta inaan ku farxeenin geeri qof walaalkay ah. even xataa hadda aqoonin macluumaad qof islaam ama qof bilaadan oo xanuunsan aan ku qosli karin. ma fahamta aan ku jeesjeesi karin sida ay milanaysin maaha. anigana gabadhiina ahay, walaashiina ahay, inuu qofka ma fiicno waxyaabo uu asaga lug ku lahayn ama uu dambi ku lahayn in lagu eedeeyo. ani inta badan waa idin sheega mar walba waxaa idin dhaha kommentiyadiina waa ii dhiirigelin. kommentiyadiina waa wax kaliya hore ugu socdo mar walbo hadna aan ku niyo jabin oo hore u socda u sameeyay dhiirigelintiina qaataa. marka anyway dhib ma lahan, wixii dhacay waa dhaceen. haddaad ku qaldantay commentiga aad soo qortay dhib ma lahan, waa ku cafiyey. haddaa anigana qalad ii fahantay oo maxaa la dhihi jiray dee inaa usoo libistay aad u qaadatay gabadha walaashay geerideeda ama aan ku farxay, igama mudno walaashay manooxaas iyo wax lamid ah. still ilaa ay hadda waa aamini laahay, waan rumaysan laahay. ilaa ay haddana mar walba tukado ama mar walbo aan ilaahay hor istaago tuugana ilaahay waxa ugu tuugaa jannadii firdaws inuu ka waraabiyo. ma fahantay qof igu qaali ah, qofa aqaano, qofa taqaanid maanta adiga geeridiisa kuma farxaysid. ilaahayna ima tuso yahuudna mihi islaam ah, aniga qof muslim ah oo ashahaato iska daa qof bilaadan inaa ku kortunto dhimashadiisa sida ugu farxaa. maxaana ugu dhacay idinka? subxaanallah, waxa sheegay wax kale ma kala aqaani. dhib ma lahan tan way ugu dhacday, laakiin please waxaa idinka codsanaya dadka igu xiran walaalahay mar walbana idin sheegaya waa idin jeclahay.
waxyaabo qofka waxaa jiro adiga iska qoraysid laakiin qofkan isaga dhaawac u geysanayo ama qalbigiisa uu ku xumaanayo waxyaabahaas oo kale iska ilaaliya hadirtaan waxba idinma qabi qaladkayga ii sheegteen waana ku mahadsan tahay commentiga quruxda badan ii soo qoraysid raaligelinna waa idinka qabaa ana nafsadeeda ana isku raaligeliyeen faante marka waxa aad iyo aad ugu xumahay waxay tahay gabadh walaashay oo ilaa ay hadda wallahi si kasto bandol ah oo cuno waxba ii mataray madaxaas ii dhahay naxtintaan nahay markii uu dhahay Munisha dhimatay waa aamini waayay muuqaalkii hore ma yahay kii labaad xataa meesha u socday wallahi ma aadin dharkii aawatay inta siibay isla markii tacsiye idin soo duubay ani hadii aad dhibaato wada misata xumaan wada misata qof geeridiisu ku farxaayo uma soo tacsiyen lahayn inta meel soo fariistan ilaaha u naxariisto qofkaas ma dhihi lahayn please waxyaabo qofka qalbigiisa dhaawacay ha ku sameenin dhamaantiin waa idin jeclahay idin sii hor istaagsanaan kari waa idinka xishoonaya sababtoo ah commentidiina markaan arko kamarada markaa duwaayo commentigiina ii soo sawir maayo ma fahantaa qofka bini'aadamka moraalka lagama jibiyo حتى والس عشتا قف هدو كومنت حن سو قري كن كلتا وحال ورساس أما يهن ساسي تهي مرك حتى نوحو إذن مقبي واني إذن جعلهاي وحو الباتيين أنا إذن قربو anyway إما لا هدرتاني مو كامرد مسيوة ذكري أصحابتي بقالي هو إذن جعلها ولا شيء معاني إله ونحرسته جنة فردوس إله كورا dadka ay ka geeriyootay dhamaana waxaan u dirayaa tacsitiraan leh dhamaantiin waa idin jeclahay kulligiina kora idin wata muuqaalkan ma sii wadi kari samri iimaan anagoo dhan ilaahay naga siiyo dad badan la dhinteen dadka la dhinteen ayagana oo maanta shilka ku wada dhinteen shalay waxa dhahay wax kala maksaay oo ku dhinteen ayagana waxa la yahay samri iimaan ilaahay samri iimaan ilaahay ka siiyo waalidiintooda iyo walaalahooda kutaabkooda gacanta midig ilaahay ka siiyo su'aalahan ilaahay u fududeeyo maanta meeshii aadeen anagoo dhan waa meel la wada sugayso anagoo dhan oo wada socono please waxa idin leeyahay marka qofka bini'aadamka ah laguma fududaado umana lagu degdego anigana gabadh walaashina ahay gabadh Soomaaliyeed ahay maanta hadii wax ugu dhacaan ama maanta hadii wax ay gaaraan hadaa faraxsanahay hadaa murugsanahay dadkii la qaybsan lahaa idinka waaye hay xumeeynin xumaanna warkeyga ha u fasiranina marka dhib ma lahan commentiyadiina ana ku faraxsan inay soo qortiin waayo mar walba ana share commentiyadiin do like marka dhib ma lahan wixii aad fahmi weysaan sidoo kale ana idinka soo jaahil bixinayo dhamaantiin waa idin wada jeclahay madaxa ii saarantihiin kii amaana iyo kii caayaba waxaan aniga u arkaa farxad walaalaheetiin kulligiin waa idin jeclahay hadal badan hama buuxsho hadal badan ma sii badi kari waa murxa ku dhahay because waxyaabo aadan malaysanayna mararka qaar la kulmaysaa mugtaa wallahi billahi aad iyo aad ugu xumaada marka ay dhaadeen waa ku faraxsan tahay qof bilaadan geerid sidee ugu farxaa bismillaahir rahmaanir rahiim xayawaan hadu meel ku nafbahay ana aan fiiri karin iska daa qof bilaadan subhanallah azza wa jalla marka anyway hadarta marwe ina kaamirada ku sii dheeraado madaxa zaid iyo xanuunaay waa salaama idin leeyahay qofkii qaladii fahmay ha igaraali noqdo dhamaantiin hada qaladii fahanteen igaraali noqdo hada xumaan iyo fahanteen igaraali noqdo inta wanaaga jecel oo wanaaga aragtana ayagana sidoo kaleeto waa idin wada jeclahay insha Allah hadii ilaahay idmo farxad idin rajeynaya farxad ku noolaada kuna waara insha Allah hadii ilaahay idmo